بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka ama ogtahay dhegeystow waa barnaamij aan ugu talgalnay inaan ku faafino fikirka weyn ee fikirka islaamiga ah isla markaana muhiimad weyn inoo xambaarsan anagoo mar waliba aan ku eegayno nolosha aan ku noolnahay si guud ahaanba waxyaabaha inoo horseedi kara inaan helno sacaado iyo guusha weyn ee labada daar haddaba waxaan idinkaga soo diyaariyay quraanka kariimka ah 7 sifood oo waaweyn cidii la timaadana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jeclaanaya ma ogtahay badanaa waxaad ku ogaan doontaan in badan waxaana baari doonaa aayaadka iyo xadiista si aan u faa'iideysano daarta aan ku noolnahay iyo daarta aan u socono aakhiro aan hore u guda galno 7 arrimood ayuu quraanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku cadeeyay cidii la timaadana ee Ilaahay jeclaanayo haddaba waa su'aal muhiim ah la isweydiinayo yeeyihiin kuwa Allah subxaanahu wa ta'ala jeclaaday ama tilmaamaha Ilaahay tilmaamay cidii mid kamid ah la timaaday si guud ahaanba laga helo oo la isdhihi karo waxa ay ku sugan yihiin jaceelka Allah subxaanahu wa ta'ala mid koowaad Ilaahay waxa uu ku tilmaamay muxsiniin waa darajada ugu sareysa ee ka sareysa marka laga hadlayo islaamka iyo sidoo kale marka laga hadlayo iimaanka waa darajada qof walba higsada muxsiniin Ilaahay waxa quraanku ku yiri in Allah yuhibbul muhsiniin Ilaahay wuxuu jecel yahay muxsiniinta muxsiniintana barnaamijyo kale ayaan kaga hadli doonaa hay'ashee inta aynu ku soo koobana sidoo kale tilmaamta labaad oo Ilaahay tilmaamay oo uu jecel yahay waxa kamid ah dadka Allah subxaanahu wa ta'ala ka cabsada Ilaahay marka uu tilmaamay waxa uu yiri fa inna Allaha yuhibbul muttaqiin wa kuwa Allah subxaanahu wa ta'ala uu jecel yahay Ilaahay waa midka uu jecel yahay muttaqiinta taqwadana waa mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn wanaagu soo aruursanayo darajada ama sifada saddexaad Ilaahay uu tilmaamay waxa uu yiri muqsiduun waa kuwa cadaalad sameeynaya dadka cadaaladda sameeya waa kuwa Ilaahay jecel yahay marka uu ka hadlayo waxa uu yiri fahkum baynahum bil qist inna Allaha yuhibbul muqsidiin sifada saddexaad haddii aan ugu gudubno dhageystayaal sifada afraad haddii aan ugu gudubno waa tawaabuun Ilaahay quraanku ku sheegay waxa uu yiri inna Allaha yuhibbut tawaabiin sifada shanaad haddaan ugu gudubno Ilaahay waxa uu tilmaamay mutadahharuun marka laga hadlayo in qofka daahir uu noqdo waa si guud ahaan midda gudaha ah qalbiga ah iyo sidoo kale in uu qof mar walba uu weesaysto daahir ahaado ama dharkiisu ay ahaadaan mid runtii nadiif ah nadaafada ku dadaalaya haddaba nadaafada midda qalbiga gudaha ayaa muhiimsan oo in badan culimadu ka hadlayaan Ilaahayna waxa uu yiri wayuhibbul mutadahhiriin Ilaahay waxa uu jecel yahay kuwa daahiriya qalbiga iyo sidoo kale si guud ahaanba daahirnimada weesada iyo ku dadaalaya iyo in nadaafada ay ku dadaalaan tilmaamta lixaad waa saabiruun kuwa sabra Ilaahay waxa uu yiri quraanka asagoo tilmaamaya wallahu yuhibbus saabiriin samirkana waxa lagu soo aruuriyaa 3 qaybood midda koowaad waa qadarta rabbi inaad wixii Ilaahay qadarinaad aad ku samirtid sidoo kale daacada Ilaahay inaad ku samirtid midda saddexaad inaad ka samirtid macaasida haddii aan ka gudubno midda u dambaysa sifaadka ama qofka la yimaada oo Ilaahay jecel yahay waxa weeyaan waa mutawakkiluun Ilaahay mar uu tilmaamayo quraankiisa wuxuu ku yiri inna Allaha yuhibbul mutawakkiliin Ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa Allah tala saarta inta ha inoo joogo dhageystayaal xalqada kalena intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tagnaa sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh